ilaahay amarkiis Soomaali ha ku aragto waa la isku habaaraa. Hadda habaar wuxuu noqdaba diiwaanka gala international iska dhacday. Soomaali ha ku aragto waa balaayo ha ku aragto. Wiilkii loleyda ahaa ee reer Sweden ee barnaamijka quruxda badnaa ee la soo shirtagay maalmahan hadal hayntiisa tirada badan social media Soomaalida amaba guri walba oo Soomaali ka mid ah hadalkiisa socday filinkiisa Soomaaliya soo afjarto soo xirtay horta filinkan iyo qisadiisa iyo sheekadaas filinka aan rabaa inaan tafaasiil yar aan gudaha u galo isla markaana aan falcelin yar ka bixiyo ilaahay amarkiis Soomaali ha ku aragto waa la isku habaaraa. Hadda habaar wuxuu noqdaba diiwaanka gala international iska dhacday. Soomaali ha ku aragto waa balaayo ha ku aragto. Wiilkii loleyda ahaa ee reer Sweden ee barnaamijka quruxda badnaa ee la soo shirtagay maalmahan hadal hayntiisa tirada badan social media Soomaalida amaba guri walba oo Soomaali ka mid ah hadalkiisa socday filinkiisa Soomaaliya soo afjarto soo xirtay horta filinkan iyo qisadiisa iyo sheekadaas filinka aan rabaa inaan tafaasiil yar aan gudaha u galo isla markaana aan falcelin yar ka bixiyo ilaahay amarkiis Soomaali ha ku aragto waa la isku habaaraa. Hadda habaar wuxuu noqdaba diiwaanka gala international iska dhacday. Soomaali ha ku aragto waa balaayo ha ku aragto. Wiilkii loleyda ahaa ee reer Sweden ee barnaamijka quruxda badnaa ee la soo shirtagay maalmahan hadal hayntiisa tirada badan social media Soomaalida amaba guri walba oo Soomaali ka mid ah hadalkiisa socday filinkiisa Soomaaliya soo afjarto soo xirtay horta filinkan iyo qisadiisa iyo sheekadaas filinka aan rabaa inaan tafaasiil yar aan gudaha u galo isla markaana aan falcelin yar ka bixiyo marka wiilkii cali ahaa waa la qodqoday waa la soo baarbaaray barnaamijkii oo meel fiican u maraayo musalsalkiisa aad iyo aad loo fiirsanayay meelo badan dad badan aan fiirsanayeen waxayna ahayd mid xalaqo kasta oo ka mid ah dadkay aad u sugayeen oo ay jeclaysanayeen inay daawadaan marka wixii waa iska taqaanaa anaga Soomaaliyaana curiosity iyo dagaal iyo buuq aan galeynaa wax nagu cusub markaan aragno intaas looguma simin wiilkii waa la dabagalay waa la soo baaray waxaa la soo ogaaday wixiisa dhan inay feeg yihiin oo waxaa xataa magaca loo yeelay say walaahiga ugu horeeyo oo been sheego oo beenaale ah inuu asaga noqdo sida la ogyahay dadka ilmaha ku dhashay ama dadka ku koray qurbaha say walaahiga loo yaqaano waxaa la aaminsan yahay inay yihiin dad 100% runtii loogu imaado 100% laakiin kan waxaa la yiri waa beenaalihii ugu horeeyo say walaahi si kastaba ha ahaatee ninkii waa cali ahay waa la dabagalay hadda maxaa ku taqaanaa anaga Soomaaliya nahay barnaamijka markiisa hore oo markuu cusbaa waxaa ka imaaday doodo fara badan oo ku saabsan sidee hal nin intaas oo gabdhood ay ugu tartan geli karaan si ay guurkiisa uga soo jawaabaan meeshaas horta sheekada ka halawday waxay noqotay in dad badan colaad ugu qaadaan oo la yiraahdo dhaqankeena ma ahan diin hadda kama sheekaynayo laakiin waxay dad badan ay ku doodayeen nin loo leeyahay inay halahaas oo gabdhood ah qaarkood sheegeen inay safar u soo galeen inay nolosha la wadaagaan taasoo colaad fara badan ka dhalisay hadday ahaa lahayn rag fara badan oo ayagu la dhihi karo way ka maseereen maseer ma la dhihi karaa iska anyhow waa iska taqaanaa Soomaaliyaana qof marka wax la yimaado dad badan negativity keenayo diidmo badan ka hor imaanayso gabar qaalin geel laga bixin jiray hadii la yiraahdo lo maba ku sii jirtaba ma ogtahay Soomaaliyeed anyhow wiilka cali ahaa barnaamijkiisi waa laga daba tagay dadkii waxa nin beeraley ah ee raadinayo gabar uu nolosha la wadaago horta filim cusub ma ahan waa musalsal hore u jiray oo ka bixi jiray channel Australian ah kaasoo la yiraahdo A Farmer Wants a Wife nin beeraley oo naag doonayo gabdho fara badan ay usoo tartan galayaan sidii ninkaas midba mar uu ula kulmi lahaa si uu ugala baxo midii markaasiiti uu adiga ama la noolaan lahaa ama guursan lahaa mustaqbalka
barnaamijkaas wuxuu soo bilowday musalsalka ah haddaana qaldanayn 2007 ilaa iyo 2013 meelahaas waa u socday. Musalsal wuxuu ahaa qaybo fara badan leh, dadka aad ay u jecel yihiin adduunka dacaladeedana meelo fara badan oo laga fiirsaday. Marka wiilkeena cali barnaamijkaas ayuu soo koobiyeeyey, barnaamijkii ayuu la imaaday, lasoo shir tegey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo laabad wanaagsan, waa walaashin Firdowsi Cabdulle. Janalka aa iga daawanaysaan waa Kaaha Nolosha. Soo dhawaada akhyaarta barnaamijka ku taxan iyo akhyaarta cusub eena daawan doontana waxaan idin leenahay gacmo furan, qalbi furan iyo weji wanaagsan ku soo dhawaada. hadda aan u guda galo mawduuca aan rabo maanta inaan falcelin yar ka sameeyo barnaamijka quruxda badnaa ee hadalhaynta tirada badan Soomaalida ka dhex dhaliyay wiilkii looleeda ahay. Dadka qaarkood qowsaarka dhehen, aniga qowsaar ma dhigi doono, looley ayaan dhigi doonaa. oo maalmahan guri walbo xaafad walbo social media albaab walbo asaga kaliya laga hadalhaye. Mr. cali wiilkii filinkiisa Soomaali ayaa gubtay. aan dhaho Soomaali ha ku aragto balaaya ha ku aragto hore loo sheekada mareysaa. horta sheekada wiilkan uu la soo shirtigay anyhow hadda barnaamijka cali waa ka gubteen intii wixii uu la soo shirtigi doono waa sugaynaa insha Allah maalmaha soo socdo. akhyaarta ugu taxan barnaamijka waxaan leeyahay sii share gareeya. intaa barnaamijkan mid lamid ku kulmeynana sidaas iyo nabad. si kastaba ha ahaatee bal Soomaaliya fudaydka naga daaya. hadda qof kale hadduu barnaamijka lala imaado oo firsina iska soo qaato meel kale ka soo qaato oo asagana is dhaho barnaamijkan qayb Soomaali ah sameey, mar kale ha ku duulina, ha weerarina, ha baarbaarina, ha soo malafkiisa ha keenina, meeshaas uga hara. fiirsada daawadayaal fiican noqda. bixi tacliiqaad gooni waaye reaction, laakiin reactionka ha ku dheeraanina. marka barnaamijkan farmer wants a wife ama ninka beeraalaha ee xaaska doonayo xaaska raadinayo international adduunka meel walba laga fiirsadaa. barnaamijyada waa la koobiyeeyaa oo hadda barnaamijkan Arab Idol oo kaleetood American Idol oo ka imaaday, Australian Idol aa jiray, adduunka meelo fara badan wadan walba. marka mashruuc barnaamijyada noocaas oo kale waa la iska sii koobiyeeyaa. waxaysiino xataa heli karaa, maalgelin fara badan heli karaa, meel badan laga sameyn karaa. wiilka haddaa lo-da ku xumaynayseen oo lo-da ku ximinayseen intaasoo gabdhood inay usoo safraan waa sheeko kale oo moogtahay oo dagaal kaleetood oo hor leh. filimka wiilka waa ka gubteen. mucjabiintii oo yeeshay dadkii fiirsanayay oo daawadayaasha ku taxnaay hadda ayaga naftirkooda dismoral ay noqdeen. qaar gabdha oo isla hadalna waxay dhaheen walaahi aada uga xumaanay in barnaamijkii socday. marka waxaa meel walba dhex yaacaya fiidiyoda xaaska gabadhii barnaamijka oo dhextaalka soo galayso oo waraysiga ka qaadaysay waxaa lasoo ogaaday inay xaaskiisa tahay. wixii dhan adiga dadkii oo dhan waa lagu camirtay ninka cali ahay. laakiin aniga waxaan leeyahay dadkii qodqoday filimkan musalsalka quruxda badnaa ee noo socday ayaa dad badan xiiseynayeen, dhexday uga dhaceen. hadda musalsalkii wiilkan waa khasaarisay Soomaaliya. annagii fiirsanaynay iyo wixii meesha ku dhammaan doonaan dadkii gaadayay oo aadka u xiiseynayay intee geli doonaa, yuu dooran doonaa, miduu la bixi doonaa, maxaa xigi doona laysdhahayana hawada ku laasheen. sababtoo ah dadka dhan hadda waxay og yihiin waxaan inay feeg yihiin, waxaan inay wax soconayna ay yihiin. ninkii naagoo qabaa ha la yiri, naag kale ma guursanaayo babababa sheekada way halaawda. marka Soomaaliya fudaydka iska dhaafa. barnaamijkan farmer wants a woman